Bismillaahi Raxmaani Raxiim daawadayaal taariikhda maanta waa 10 bishii tobnaad qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah maanta duqeymo ba'an oo ku socda dalka Ukraine qaybihiisa kala duwan sida caasimadda dalkaas iyo gobollada u dhow sida magaalada Lviv iyo magaalooyin kaleba ayaa waxaa ku socda duqeyn cir iyo dhul iyo bad iyo biriba gantaalada laga soo ridayo say sheegeen saraakiil u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Russia waxaa la arkayaa magaalooyinkii oo gubanaya dalka Ukraine gaar ahaan caasimadda goobaha ganacsiga xarumaha dowladda waxaa la arkayaa bridge aad u weyn oo magaalada labada dhinac isku xira oo magaalada Kiev dhex mara asagana uu gubanayay saaka subaxnimada hore ee la eegteen gantaalo ay la eegteen wasaaradda gaashaandhigga dowladda Russia ay sheegeen bridge-kaas aad u weyn oo ku yaalay magaalada Kiev dhulka ayaa la simay xarumo dowladeed badan dhulka ayaa la simeen goobo ganacsiyo badan aad bay dhulka ula simeen duqeyn ba'an ayaa hadda socota aan loo kala harin shacabkii waxaa la arkayaa cararaya oo meel ku gabadaan raadinaya gantaaladu meel walba ay ku dhacayaan ama ha noqoto isbitaal ama ha noqoto xarun dowladeed ama ha noqoto xarun ishaga kaniisada ha noqoto ama buundooyin ha noqoto ama laamiyada la maray ha noqoto daawadayaal arrinkan wuxuu daba socdaa weerarkii argagixisay oo loo geystay buundadii Crimea isku xirisay dalka Russia oo laga soo bixiyay gaari qarxa halka lagu qarxiyay arrinkan marka khubrada dowladda Russia markay baaritaan sameeyeen ayay go'aankan qaateen warka ku xigay ayaan ku soo sideynaa isla warkaana sidaa daraaddeed gantaaladan iyo caradan Ruushka waxaa ka keenay muddo dhowr bilood lama soo weerarin caasimadda Kiev iyo agaarkeedaba waa ogeedeen Kiev iyo magaalada u dhow Lviv wuxuu ka baxay muddo laga jooga hadda 7 bilood ciidanka Ruushyaanku bishii afraad ay ka baxeen daawadayaal hadda dagaalkii weji kale ayuu yeeshay oo isku rogay waxaa la arkayaa shacabka qaarkood oo reer Ukraine oo live ku jira sida gabadhan yarta oo kale oo soo tibinaysa oo dhahaysa gantaal ayaa nagu socda agteedu ku soo dhacaya gantaal gabadhan aad bay u qeylinaysaa waa tan agteedu ku soo dhacay geedka ka dambeeyay ku dhacay ayadii kolley waxba soo gaaray gantaaladu waxa weeye aad bay ugu hoobanayaan maanta caasimadda dalkaas iyo magaalada ku xigtay Lviv korontadii oo ka goynay biyihii sidoo kale daawadayaal goor dhawaad asna saxaafadda waxaa la hadlay madaxweynaha dalka Ukraine Natalia Zelensky oo sheegay in dalkii lagu soo duulay in aan nolol ogoleen weerar argagixisan lagu soo qaaday gantaaladu ay nagu hoobanayaan diyaaradihii drone-ska noo adeegsanaya Iran korontadii biyihiina la ka jaray wuxuu yiri wajigii ayaa la rabaa in laga tirtiro adduunka shacabka reer Ukraine waxaan ugu baaqayaa inay midoobaan inay isku soo baxaan inay dowladooda taageeraan inay ka hortagaan argagixisada inay cadowga ka hortagaan waa inaan mid isku caawinaa waa inaan isgarab istaagnaa Natalia Zelensky waa taqaanaan madaxweynaha Ukraine asagoo live soo galay oo wajigiisa nacalada ka muuqato waa yuhuudiga xukumay Ukraine waa ninka nabadda u diiday sidoo kale madaxweynaha hore dowladda Mareykanka madaxweyne Trump oo la hadlayay taageerayaashiisa ayaa ugu baaqay in la qaato nabadgelyo uguna baaqay labada dhinac Ukraine iyo Russia in xaaladda lagu soo dabaalo wada hadal in la qabto shirar degdeg ah adduunkan wuxuu yiri adduun casri ah dagaal maanta lagama bixin karo gantaalo casri ah la haystaa dagaalka labaad adduunka lama joogay kii koobaad daawadayaal ninka saa dhahaya waa drama oo taqaanaan oo maanta dhahaya dagaal lama baahna hub casri ah la haystaa Ukraine ha laga gaaro Ruushka ha laga gaaro wada hal degdeg ah la furo war kuwa doqomada xukunka hayo waa la hadlaya Biden buu uga jeedaa doqonka xukunka hayo Bidenow war wada hadal fur war jooji waxa wadid sidoo kale daawadayaal madaxweynaha dowladda Russia madaxweyne Putin ayaa shir uu qabtay goor dhaweeto wuxuu kula hadlay guddiga xaqiiqada raadinta ahaa ayuu ku soo bandhigay si waxyaalaha u soo gudbiyeen waxyaalaha keenay in la duqeeyo caasimadda Kiev iyo ama Ukraine qaybo ka mid ah wuxuu yiri waxaan haynay xog buuxda guddiga ayaa nala wadaagay guddigaas oo ka koobnaa amniga qaranka gudoomiyaasha gobollada guddiga kale oo loo xil saaray guddiyo kale oo ka socday militariga sirdoonka councilka qolada u qaabilsan wuxuu yiri nabadgelyada dalka Russia dhamaantood waxay soo gudbiyeen guddiyada isku dhafka ahaa in arrinkan uu ahaa argagixiso ay soo abaabuleen sirdoonka Ukrainiyiinta iyo xukuumadda fadhida Kiev
mana aha buu yidhi arrinkan wax loo dulqaadan karo. Waxaa la rabaa buu yidhi nabadgelyada shacabkayaga in maaragtay la dhibaateeyo. Waxaa la rabaa buu yidhi quruxda waddankayaga in la burburiyo. Mana yeelano buu yidhi argagixisada waxaan soo aabusho waa naqaanaa anagu. Horey ay waxaa u sameeyeen buu yidhi baabkii Turkiga mari jiray qarxiyeen. Midkii hadda wuxuu yidhi Scandinavian-ka ay qarxiyeen. Xaruntii nuclear-ka ayay 3 jeer soo weerareen oo qarxiyeen. Zaporozhye ku taalay. Wuxuu kaloo sheegay gobolka Donbas 8 sano inay weerar ku hayaan oo artillery ku garaacayeen. Wuxuu yidhi kurtigoodna waxaa sameynaya uu yidhi waa qoladan argagixisada. Wuxuu yidhi waxaan amray wasiirka gaashaandhigga inuu qaato go'aan adag oo ku garaaco gantaalada nooca ugu dambeeyay cir iyo dhul iyo biriba. Amarkaas ayaan siiyey wasiirka gaashaandhigga dowladda Russia. Duqeyntuna way ku socotaa Ukraine wayna ku socon doontaa. Kuwa argagixisada doqomada waxaan kaloo u sheegayaa kuwa gadaal ka soo riixaya oo doqomada reer galbeedka oo doqomada Kiev joogaan ku shaqeysta amarkooda qaataana dharbaaxa ayaa ayagana gaarin doonta gacanteeda ayaa ayagana gaarin doonta mar dhow. Waxaan u sheegay wasiirka gaashaandhigga inuu soo afjaro argagixisadan cir iyo dhul iyo biri meel walbana laga duqeeyo. In loo diido inay seexdaan, in loo diido inay wax cabaan wax cunaan. Wuxuu yidhi ha ku socdeen gantaaladu. Wuxuu yidhi madaafiicdu wax walba ha ku socdeen. Saa waxaa dhahaya madaxweyne Putin. Daawadayaal arrinkan hadduu saan ku socdo oo duqeymihii hadda saa u socdaan ciidamada Ukrainiyiinta iska daaya dalka Ukraine waxaa laga yaabaa inuu isdhiibo. Waxaa arrinkan ku xigin karana waa in nuclear lagu dhufto. Nuclear haddii lagu dhufto dowladaha reer galbeedka oo ku xeerarsan oo dhanna hal dowlad oo nuclear haysta male. Wararkii ugu dambeeyay warkan ku xigana waa sida warqsaha badan baan nagu soo celin doonaa daawadayaal. Meel walba joogtaan daawadayaal oo nala socotaana la socoshadiina aad ayaad ugu mahadsantihiin. Nala socotaan aad ayaad ugu mahadsantihiin daawadayaal. Warkan warka ku xiga ayaan noo balan haddii eebbe yiraahdo insha Allah.